TV-ga Banaadir waa ku dhawahay waana ku faraxsanahay inay wareysiga qaadaan. Horta marka laga hadlayo ahmiyadaha ilaalinta masaa'ida qadiimiga waxay noo tahay anaga dhaxal waa mid lama taabtaan ah oo soo jireen ah aasaartii taariikhdii dhaqanka ay leeyihiin qowmiyadda Banaadir waa mid aan lama taabtaan ah. taasna waxaan u yeelayaa haddaan ka soo qabto masjidkan hadda 4 rukun waxaa la dhisay 667 hijriya waqtigii kadib muddo markuu dhisnaayo waqti burburka kadib qol ayaa timid oo mashruuc wadata oo ka soo qaadata dowladda Turkiga la soo heshiisay oo inay dhisaan waxa xoogaa isqabqabsi ayaa ka dhacay masjidkan inta la dhisin dadka xaafadii iyo culamo diinkii iyo shirkadii waa isku dhaceen kadib waa la xaliyay الحالي مدينة وكفرحسنا وانسو دوين وانو كفرحنا إن مسجد قديمة أي 4 ركوع إن ديعتر رسم الوصبة لكن ديعتر كيس أي سنقنن مت أو لقبدلن أستانتي آثارتي التاريخ دي والله مساعد كان للزولين وحان أرقنا مركز الإسي أو ديعتر أو كدب أو حرقة لوجه وحان أرقنا sidii horay ee hadda si loo dhisay inay u dhaxayso farqi weyn waan ku yaabnay ma hadli karno waa sabarnay laakiin muddo kadib waxa haddana dad isku dayeen in masjidkan qadiimiga ah ee Fakhruddin inay baabiyaan astaantii iyo taariikhdii uu lahay anaga haddanahay dhammaan qowmiyad Banaadiriga waan ka soo horjeednay waan ka dhiidina kadib qoladu way iska tagtay hadda waxa maqlaa dadka deegaanka culimaadii iyo dhaqankii inay isugu tageen ay diyaactireen waxa kale oo jira masjidkan hadda la yiraahdo oo ku yaala badda la yiraahdo Xaaji Cali asalkiisna loo yaqaano Abu Xuseenka waa mid taariikh leh dadka waxay u yimaadaan cayaar maadaan laakiin waxay u yimaadaan daawo ahaan maadaama daawadiis biyihiisa qaraar waay laakiin dadku waxay u isticmaalaan in caloosha ay iska bixiyaan daawo ahaan ay u isticmaalaan asagana dowladda Turkiga ayaa dhistay ay dictartay laakiin naqshadii hore malaha naqshad cusub ayaa loo dhisay anaga waxaa kaloo jiro hadda degmada Shingaani مسجد وحاكو يالو شنقان جامعة هوس مركي لو دادقو وحاكو يالو مسجد قديم وأصل عن لدقنين أو لقودكونين أو تاريخ دي وحيو دن وكيالو وحال اسكو دايي إلا بابيو أو أسارتي وحا لغا هرتغو وحيال بدن تاريخو فر بدن أيا لربي إن la tirtiro oo dib dambe loo xasuusanay anaga hadaan nahay culimo diinkii qoyadii oo na hogaaminay walaalkeena Exel Dhawaan Amar Shakit waxaan ku qabanay degmada Shingaani iskuulka degmada Shingaani ayaa war saxaafada qabanay oo u horteeyeen boobka lagu haayo taariikhda iyo dhaqanka qowmiyadda Banaadiriga kadib anaga markii saas ay dhacday dadkii xoogaa دبي ولابته واكسو هرجيسني حتى وحان جعلنا هاي برنامج كستو قفك بيت الله والإسكرا اتك حيكتا ماله لكن أذيقنا وإنات كحسوسنا تاي إن آدم بدلين بقنكي إيو نقشدي إيو تاريخ دي والله هاي هاد أمت وحالة فيرينا تاريخ دي قنكو دي حضارة دولة هذا لبابيو قفكاس ددكاس قوميداس اما بيشاس جيرتانكود waa baabay جيرتانكود waxay ku saleeyeen aasaartu dhaqankooda in la ilaaliyo waxaan ugu baaqayaa akademiyada cilmiga dhaqanka suugaanta wasaaradda u qabta arrimaha islaamka waxaan ku baaqayaa in la ilaaliyo goobaha taariikhda ah ee muhiimka ah ee lama taabtaanka ah
oo yaan la isku dayin in la baabi'iyo. waxaan kaloo baaq u dirayaa dowladda federaalka in wax kasta oo barnaamij taariikh ah ama dhaqan ah oo qumid la leeyahay hadda la rabo ama misaad ahaado ama wax kale ahaado in la soo farageliyo waa in laga tashtaa aqoon-yahankooda culmaa u diinkooda oda dhaqameedyadooda. taasna waxaan u leeyahay si aysan mar dambe oo isku dhac u imaanin oo layska horkeenin shacabkii iyo dadkii walaalaha ahaa ee rabaan inay beedkaas ama barnaamijkaas inay silrow fuliyaan. waanu ku faraxsanahay mar labaad mar saddexaad waan kaaga mahadnay walaalkay maclow anigoo ku bilaaba magacayga waa doctor cali cumar abate ahna ka mid ah culamaa udiinka qowmiyad banaadir gaar ahaan culamaa udiinka aala faqiih. waa dad xadaare iyo dhaqan u leh waa dadkii diinta islaamka keenay oo soo geliyey ayna ka aflaxeen culamaa udiin fara badan oo ugu horeeya shacali dheere ugu horeeya maxamuud jareer waxaa sheekh maxamuud ow cabdulcariif waa dadkii diinta waa dadka asalka u ah xadaarada iyo dhaqanka iyo diinta islaamka. waa dad nabadeed aan dhibaata wax aan marin dadna dhib u geysane maadaama ayaga dhib lagu geystay way sabreen. qadarta mar kasta waa in loo sabraa mar lee faraj furanaa. heer xamar waxay yidhaahdeen run ma la isku sheego raaxa maroo rabtee nin barootiisa uroraa. sababta aan leeyahay waan aragnay baryahan wax socdo annaga waxaan jecelnahay oon garab ku siinaynaa dowladda gaar ahaan wasaaradda uqaabta arrimaha islaamka in wax allah waxay ku saabsan masaa'idaha taariikhda inaan kala shaqayno oon garabkooda aan soo istaagno wabilaahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.